xubnaha magacaaban ee golaha wasiirada wasiir ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaasha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee shalay magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gaalkacyo waxaana qaar kamid ah dhalinyarada iyo waxgaradka ku nool magaalada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliya ay baaq u direen xubnaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya taa oo ku aadan ansixinta xukuumadda magacaaban iyagoona sheegay in looga baahan yahay in si degdeg ah ay ku ansixiyaan maadaama loo baahan yahay in la dardargeliyo howlaha shaqo ee dalka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan ahay nabadoon Cabdi Jaamac Saalax. waxaan u hambalyeeynayaa wasiirada cusub oo la dhisay Xamse Cabdi Barre sida sharaf kale oo soo dhisay baan aad iyo aad ugu hambalyeeynayaa xildhibaanada sharaf kale nin walba tiitarku ku fadhiyaan ku salaamaya hambalyo intaasaan leeyahay. si fiican waxaan u arkaa wax fiican baan u arkaa waana soo dhaweynaynaa kuwii hore kuwa ka khayr Allah ka dhigaan leenahay oo kuwii hore kuwa ka fiican dawladii hore dawlad ka fiican Allah ka dhigaan leenahay nin baana rati ku salsalo wuxuu yiri baaliyeer libaaxle waad yaabi doontaa waaseeyayga ku yaal dawladda maanta la dhisay wasiirada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada hawl adag baa u taal waa inay ogaadaan hawl adag baa u taal nin baana wuxuu yiri baa la yiri dawladdii maxaa si aad barre markuu qabtay uu la wareegaan wuxuu yiri wala ama toorku toor noqoyo Soomaali taakuli ama toor laan noqoyo Soomaali kala tuuriyo barna jeelka lagu laa barna Yurub u tacabira barna wuxuu yiri jeelka lagu tuur barna Yurub u tacabira barna toomis lagu laa marka ama kuwii hore kala noqotay oo dadka kala dirtay ama dad khayr la noqotay dawladda la dhisay oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse ay dhiseen waa u hambalyeeynaa hambalyo waxaana ka doonaynaa anagu haddaan shacabkoodina odayaashoodinahay wax qabad in xil qaad inay xil isi saaraan oo dalka wax u qabtaan oo dadka wax u qabtaan ayaan ilaahayna u su'aalaynaa ayaguna aan rabnaa inay sameeyaan waxaan ugu baaqayaa baarlamaanku inuu ansixiyo oo loo kala harin meeshana odayaasha ka shaqeynaya wasiirada iyo kulli baarlamaanka inuu soo kala harin baan idinka rabaa waxa weeye dalkii iyo dadkii waa damaaday awr macsarashiisa camal baa hargal la isku xiray saasuu iska daba wareegaya sida ugu dhaqsay islaamnimo iyo intaad ma ilaahay fiirisiin oo ilaahay doomootiin Allah ansixiyo Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta